waxay ahayd 10:15 subaxnimo kadib markii aan ku booqday guriga uu ku nool yahay Iid waxa xilligaasi ku wehelnaysay guriga hooyadii oo u socotay dhanka iyo suuqa waxaanan garaacay guriga isla markaasina waxay iga furtay iridda kadib markii aan daarada gurigaasi soo galay waxa ay hooyadii wax ka weydiiyay xanuunka wiilkeeda asiibay waxayna ka cudur daarad inay wax faahfaahina ay ka sii bixiso sababo la xiriidha wiilkeeda xanuunkan asiibay oo ka murugaysan tahay Iid waa nin 29 sano jiray waxaanu la kowsaday xanuunka dhimilka balse hase ahaatee waxa asiibay muddo 4 sano xanuun kale waxaanan u socday dhanka iyo waabka uu jiifo Iid waxaanan weydiiyay markii ugu horeysay inuu hadli karayo Iid waxa uu sheegay inuu hadalku dirq ku yahay laakiin uu hadli karayo isla markaasina uu sheegi karayo meesha laga hayo iyo waliba rabo inuu weydiisan karayo caawimo waxaanu iigu jawaabay Iid sida tan ayaa xanuunaya wadnaha bidix ku dhawo saasi ishiglada u boodis saasi u boodis kama saacid xagaan uma saacid bidixtaan u yeesay bidixina imika misigtaas ay xanuuntay oo cadkii ay gaadheen boosho dabqaysa nagu dambeyntiba waxa ka codsanaya halkaas cunahaas oo intaasoo ilaa qoortaas ilaa laabtaas oo xanuunayso aan lacag noo waayo intaasoo ayaan islahaa wax laga qabtay intaa cunahaasoo aad ii xanuunaya oo barara iyo bararka keeniyo dhabankaasuna waa kayaan u seexan jiray ilaa ishiiba imika ay xanuunayso dabeed waxay ka xanuunaysaa gudaha ilaa meelahaas bararkiina qoortii wada qabsaday imika oo ka wada waxaan ka codsan lahaa iyadoo dee cunaha laga daweeyey iyo laabta iyo la daweeyey abaan ayaan ka codsan lahaa oo halkaana la eego meesha boodaysa halkaa imika gacanta diisaa loo saaray higta taaysa oo waa xagga wadnaha ku dhowyaan u malaynaya Aamin Xaaji oo ah hooyada dhashay wiilkani xanuunsanaya ayaa markii dambe ka bixisay faahfaahin ku aadan wiilka iyo inta sano ee la hayay iyo waliba in la geeyay dhakhtar waxayna noo sheegtay in xanuunkani uu dhakhtarku ku sheegay inay biyo kaga jiraan beerka iyo waliba feedhaha waxayna sheegtay in hal mar laga shubay litir biyo ah isla markaasina aan loo qaadin dhakhaatiir kale oo gudaha dalka iyo waliba dibadda sababo la xiriidha dhaqaale darre waana tan iyadoo arintaasi ka hadlaysa iyo sida loo qabtay dadiisii bal faahfaahinaga si bismillaahirrahmaanirrahiim waxa la qabtay inankan isagoo yar baa la helay dabadeedna haddii alla ka dhigo 10 jirkiisii baa ilaahay shaafiyey dabadeeta haddii ilaahay ka dhigo dabadeetana in yaroo haddii alla ka dhigo 3 sanadooda ayuu ladnaa xanuunkii amar xaasil imika xanuunka tagi waayay 8 sano iyo in ka badan buu hayay oo ku dhow insha Allah bidnillaahi kariim imikana waa kaasoo wax reersiya wuu waayay wuxuu doonayaa haddii ilaahay ka dhigo dee aanu isnidhi idamka ilaahay isaga ilaahay idamka haye muslimiinta walaalahayga muslimiinta haddii alla ka dhigo dee inay soo caawiyaan haddii ilaahay ka dhigo wixii ay u qaban karayaan dhakhtar lagu qabadsiiyo wax dhakhtar lagu qabadsiiyo waa la waayay haddii alla ka dhigo walaalahayga muslimiinta ayaa haddii alla ka dhigana soo caawiya haddii ilaahay ka dhigo insha Allah bidnillaahi kariim ninkina waa ninka imika jiifa ee socod iyo haddii alla ka dhigo hawraar iyo hadal badaayay jiraan wax dhakhtar xagaan ka waa geynay hargeysa cilaash baa la geeyay haddii alla ka dhigo burca cilaash baa la geeyay haddii alla ka dhigo 6 goor baa kabayuutarka iyo qashaafada la saaray waarwan 2 bilood baan ku hayay tiibayda bil baan ku hayay markaa tiibay ma haysa cudur kale weey tiibay ma haysa ayaa muslimka yiri biya feera iyo kaga jira iyo bogcadkaba biyo litir baa mar laga shubay litir
litir baa mar laga shubo in wax kale laga shubo waa la diido waa la tahli waayo waxa la yiri ama sida isagoo dhaansan ha ku dhaadhaco haddii ilaahay dee isagu u gargaar. ugu dambeyntiina hooyo Aamina oo dhashay wiilkani xanuunsanaya oo aan kici karin isla markaasina fadhiga dirqi ku karaya waxay ka codsatay ummadda muslimiinta meel kasta oo joogaan inay ku soo caawiyaan wiilkeedani sidii ay u geyn lahayd dhakhtar lagu daweeyo. Xabsi Cayni Sheekh Cabdullaahi, telefishinka Sabna News TV, magaalada Burco.